أنك حلوة أما بيعانها حلوة حاجة سوتوستا horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda konfi baby iyo caanaha konfi laag sidaanay ilmuhu uga qosliyaan dam bir haw عملكاني معاش هاي انت انا اليمت انت انقلوها واي ودي دار مال اركاي ميا بري كدب ابو علقتي مجله وانا شكو يمين انا كنت احمد ودي بري نورشي باي ودي مال اركاي ميا هاي ويلكي انت هاي ويلكي hooqayay beriga shacabka waa leeday wareedha annaguna waa iska ilowsho dhownahay faraxuna waa laba qab damiirka iyo dareenka naga maqanay cadawgaanu muqdisho in qof ku noolaada ma rabiyo waayahay dadka hadda ku nool hadduu cadawgu dhammeeyo dad kaloo ku noolaada ma u diyaarshay warnimiya waan waliba liyaabsanaa suuga hamarweyno wada gordaano ummadu dhon iska seedas baaburkii bow likasi odowkii langalatan lahaa inoo ka dhimido baa liyaabsana aryaadhaha maha guri qurux badana laga dhisayo muqdisho mool la yiraahdo cadawguna guri qurux badan muqdisho uma rabiyo war cudurdaar looma samayn karo ha noolaan baa la yidhaa war dadkaanu dembiga ay galeen oo loo laynayaa maxaad u nooshiin weeye aryaadhaha mas madaxaa laga dilaa waaye muqdishona waa madaxii soomaaliya minay muqdisho dhimatada meel kaloo noolaa karta ma jiri doonto warniyow qaraxaan midhba idinka reebeenba qaraxa muqdisho socdow waxaa macnahaagu yahay mas madaxaa laga dilaa yamyamaa mug hore yidhi baalalayda duushiyo dabka howtulhamaguba daf wuxuu u leeyahay jinna doonadka ma aha war mustafa shii cilmiba mar hore wuxuu yidhi intii wax ogaata dila intii loo ogaata dila intaysan ogaanin dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war dhiyow cid kastaba haddii la dilayo yaa wax idiin ogaanaya nin balaaya hagayso oo habeen hoyan waayey dhalaartina harsan waayey hantiya maalna shaqaysan waxa uu daynin cibaado oo naftiisa halaagay bal muxuu yegsanayay manaartu u iloobay war waxaasu gabay ma ahana midkaan ilaa xalay ilaa shalay la hurdi waayaan idin mariyo waa ku aqaanaa hadeer qaanqaanqa aad soo wadaa hadheh boqol gabay ninkii soo tirshoon laga rumaysaynin iyo kii intaa qarax wadoo lagu dhammaan waayey waa niman dulqaad badan haddaan la isxaqirahayne intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin inaad dhehe ogaaye war waxaasoo murtiya xaloo dhan maa u soo jeeda horaan waxaa loo yidhi sakiir saansaan injeedo socodkiisaan la ikasaa waxaa kaloo hore loo yidhi orgaga owr naqa doona idigta waa ka tilmaan warniyo nimankanu qabaa moogtii maahe waa looxyalayaashii waxaa kaloo hore loo yidhi nin balaayo abuuray barkiisu ka gurtaa waraadha waxaa la yidhi dhiig daata iyo dhul dagaal ka jiro dhimashiya dadkuna dhaawac u bateen dhiggii soo harana dhiilaysan yahay dhuun shidaale iyo dheeman baa loqodi dhiirrida warkaa lagu dhihi kariyo dhadhanka iyo macnuhu dhac bareera iyo dhabar jebin miya eebeegoo dadkanya maalin kasta la dilaayo wax la aqbali kara maahina wixii dhiig lahow kaca xaggeenu kacna adeero annagaa dhiig leh war haddaad si kasta u tafahaydantihiin xamar baa xallin weydeene war haddaan si kasta u tafahaydannay xujo iyo dhib baa xarunta yaal xididda dhaadheer xas bay noqotay xulufooyin baas kala xirmaysteen inkastoo xubno badan la xulo xilalna loo dhiibo inkastoo xariiraan khudboo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo haddii xeel intaba laysku wada xoorshay xinjir daadshay iyo xaasid xamar laga xoroyn waa aryaadhaha dadka xamar jooga xumaanta waa arkaana xisaabtankiyaa ka maqan nin xisaabtamayaan hon xumaha moogaynaan walaalayaalow muqdisho datiya mukulaali oonay dowlimaskala noolada kuraana ilma adeeryaalow tulubkan bigaha laga saaro si aan u namdoonaano waxaa hore loo yidhi xamar waa la xumeeyaa xaal marihaayo war qarax layskama xaal mariyo ma waalan tahay warwar ma haysiine dilka shabaab muqdisho kuma eka hay-adda d b wel ee boosaaso joogtay ninkii madaxda ka ah oo u dhashay dalka talyaaniga maantaa shabaab dileen reer boosaaso waxay nooga fiicnaayeen kii wax dilay isla markiiaa meeshii lagu dilay warnimiyow hadda ka horaa suugu lileey bakaaro may ku dhiiday lamba wal dilaay kawhobu sii kub yelisyaay nabado fayla la heli oo ka heregi usugahay warnimada kuwa muqdisho dadka ku laayahay dil uma baahna waxay dilaanba naftooda ka bilaabaan war gabadhii ayaan cabdullaahi axmed ee soo caleemasaatay
gudoomiyaha ururka haweenka garow waa lagu dhaawacaa la yidhi ilaa haddana lama sheegin cidda dhaawacday aryaadhaha gabdhuhu markay siyaasadda isku khilaafeen ma haddana qaarij iska dhex bilowda war ka baxa madowga oo caddaanka u booda khilaafkaasu baa ku dhex jirtaane warnimada waxaan la yaabay xalay meelo badan oo gobollada jubbooyinka ka mid a roobaa ka da'a layidhi alxamdulilah guwa masdeeru roobkii la kasaaya horta biyaha ma dhigay roob war roobku ma tumay buu ahaa mise malaadiiq warwarkan naga suga roobkaad moodeen maahane gantaale roobaha ku soo daatay xilli dambe rag badan oo u diyaarsanaa inay wax dilaanna iyagii baa la dilay marka waxaan u malaynayaa qaraxa maatada lagu laayay xamar weyne in calidheere saacadaha soo socda dhihi doono waan ka aargudannay daroonta maraykanka miyaa muqdisho leedahay muxuu ka aargutaa warnimayo aniga waxaa iga dhaadhicila siduu maraykanku noogu qanciyo inuu inta wiilal soomaaliyeed laayo aan ku farxno array maraykanuguma qancina been ha ka sheegin aya kaa nugu qanciye ummadkiisa galaan u jiido gambahaaya gaar nooga joog war wasiirka maaliyadda bayne goormaa laga dhigay wasiirka arrimaha dibadda waa la yaabe yaa kuu sheegay 5 safiir buu mid maalin la kulmay waxaana ugu darayd markuu hal maalin midka maraykanka iyo midka shiinaha qaabilay waana laba iska soo horjeeda war waa safiiradii lacagta kuwaas iyo safiirada arrimaha dibadda maaha meeqa doolarow nooga soo qaadiyahe war lacag laga qaadi mayne musuq maasuqa la isku eedeeyey oo dugdugayo laa warkaas waa been ma jiro anaa hubiyey u lahaa warnimayo waxaan soo xasuustay isxariifis badna ma baylo dad xogmooga la xisaabtamaya war mayaani oo waarantiina waa baylo bankii idiin buuxiyey musuuq yaa maasuuq ma rabne muqdisho miina danka dhaaf musuuq yaa maasuuq ma rabne muqdisho miina danka dhaaf waryaalahan jumhuuriyaddii somalilan waxay qabqabatay carruurtii gudaafadda seexanayey gebigoodiibana xabsiga ayaa loo taxaabo linta ku cabbayaan war wasaaraddii ay ku eedeeyeen inay xaqoodii cuntay ayaa ka dambaysay in ilmaha la xidho war adeero afaaraha somalilan kudhowdu kama hadashay ayar afkaaga